sidii loo dejin lahaa arrinta laga shaqeeyo intaa unba arrintan aan kaga bixi karnaa wax la isku soofeeyo meesha miya maraykanka waxaa laga karkarinayaa sida aan warar ku hayo baadigoobka intiraafka somaliland maxaa kala socota waan maqlayay nin shalay la yidhi meelaha isu hadlayo Peter Pham baa laga dhigayaa under secretary ama xogeyaha qaybta Afrika waa iska sheeko gaaban runtii sideedaba waa adag tahay ka goosashada in la itiraafo laba xoogun baad xaafido tilmaami kartaa oo arrimaha Somaliland hadda in lagu waajibo marka Mareykanka la eego dhowr koox oo ilaa 10 qof ah oo qaybta conservative-ka ama jamhuuriga researchers ah maaha official dad xafiis haya maaha baabariyaha qaarkood u shaqeeyaan Somaliland loobi ahaan qaarna Ethiopia u shaqeeyaan sida Peter Pham Ethiopia u shaqeeya ambassadorka aan jiray Peter Pham waa nin Vietnamese American ka kalaas laakiin intuba waa waxay ku dareen qodob markii loo hagaajinayay kooxda Trump barnaamijkii ahaa 2025 project qodob odhanaya Somaliland hal itiraaf waxay ku jirtaa qayb leh Afrika mucaamaadka faraha kala baxo ayay intaas marka waa taas heerkay gaari ma garan karno laakiin waa arrin aad looga warwaro lagana fikro because koox baa isqabsatay American Council oo iyana conservative daraata tii ka horeysayna Jandaya Fraser oo ahaan jirtay xogeyaha qaybta Afrika iyo laba nin oo kale marqaalay qoreen ay leeyihiin sidii Kosovo kale Somaliland ha itiraafaan waa iska moogtahay lobbying laakiin Soomaaliya qudheeda dawladda dhexena arrin aad weyn ayay ka shaqaysay dadka aan isleeyahay way ugu cad yihiin qaybta Republicanka oo waliba ninka Trump u dhow baa dhinaca Soomaaliyana hadda ka hawlgalay oo aan u malaynayo raggan la sheegayo dhan inuu uga jaban yahay ugana dhow yahay madaxweyne Trump oo dhawaan kursiga fadhiisan doona waxa jira oo kale resolution bari hore badka la keenay oo dib hadana loo keenay in la itiraafo Soomaaliya xagga baarlamaanka waqti inuu heli doono ma garan karo because ajendayo badan baa ayuu leeyahay Trump inuu socodsiiyo waxyaabo badan baa la isku haysaa marka waxaan priority ama 1 iyo 2 iyo 3 toona uma laakiin dawladda Soomaaliya waxa looga fadhiyaa inay arrintan si aad uga hawlgasho waana ogahay meel qaarkood way ka hawlgaleen sidan ku sheegayna dad aad iyo aad ugu dhow Trump ayaa hadda dawladda Soomaaliya la shaqeynaya ama ha noqdaan kuwa ciidamada Africom ama ha noqdo looyaro heer sare oo dawladdu hadda hawlgelisay ayana shaqadeeday wadataa marka labada dhinacba halgan kuma joogsanayo dhinaca kale waxa la fili karaa in madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro iyo dawladda dhexe isku soo dhawaadaan sida hadda la sheegayo ninka uu Cabdiraxmaan uu u magacaabay wadahadallada Soomaaliya waa nimaad ku tilmaami karto moderate qof furfuran oo kuwii hore ka kanaa ee mayalka adkaa aan ahayn marka rajadu way taal in la wada hadli doono maxaa lagu wada hadli doonaa maxaa lagu heshiin doonaa aad baan uga fognahay laakiin u malayn maayo Mareykanku inuu soo dhanayo arrimaha Soomaaliya ku xalli adigoo itiraaf siinay itiraafku waa adag yahay laakiin haddii aad reer Somaliland aad siiso ninka libinta kala xishoon baa la yidhi runtii dhalinyaradooda iyo diasporahooda halgan dheer oo 20 sano ay soo galeen dadkan hadda toosaya ma dadkan hadda iyagu isku waalan ee Xamar iyo Puntland iyo Jubaland iyo Southwest system reer Somaliland way isku duubnaayeen kumiga iyo taani iska ururinayeen lobbyist bay kareysteen 20 sano ka soo shaqeynayeen marka midhahan aad aragto maanta ee cabsida gelinaya Soomaalida kale waa midho ay ka soo shaqeynayeen 20 sano albaabkiina maanta soo gaaray 90% dadka Mareykanka jooga waa dad ka yimid jamhuuriyadda iyo Soomaali galbeed oo ka soo horjeeda arrinta goosashada farna uma qaadaan ama xeelad daraan noqoto ama iyagoo qabiil ku kala qaybsan ha noqoto laakiin dhalinyarada Somaliland ee joogta dibadda credit bay leeyihiin iyagana heer ka soo gaarsiin waagaag Faisal waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtiga qaaliga iyo salmada Soomaalida madaxda ugu shiishin mar walba ama barnaamijyada halkan ku soo deena haadana ma ku